marka walwalkaasaan rabay maadaas walwal qabtaan walwalkaas wuxuu weeye mid shaqo xumo ah madaxdeenu ay shaqo xumo ka shaqaynayso mise waa walwal masiibo qaran ah oo dalkeena gacanta ka baxay badeena gacanta ka baxay suuliyadeena ka baxay qarnimadeena ay burburayso waxa weeye jamhuuriyaddii Soomaaliya la oran jiray ilaa marsanka ahayd state of gobolka koobneed ee bad iyo dhir iyo wax walba lahayd ayaa la haliyay mise waa shaqo xumaduna ay leedahay mid masiibo qaran sababi karta iyo mid waxa weeyaan maxaa gacanta kugu jira cali marka runta la sheego hadda badaayi baa gacanta kugu jirta maado khalad badan oo dowladnimadeena ku dhacay oo inagu aynu isu geysanay oo aan dalalka shisheeyuhuna aanay inoo naxeen way jiraan badan qadiin loo si kala ordayo taada firmaayo waa kala go'go'anahay waa si xun baan Swiss baa laynagu samaynayaa oo meelaha Abiy Ahmed inaga toogsan galaynayo walwalkan ahaan ku sheegay dib ma lahayd walwalkaasaan rabay marka inta ku soo koobaya walwalka bal wuxuu yahay ma mid shaqo xumo ah oo dib inoo ribayo inaynu caalamka la tartanno inaga ribayo mise waa mid dadka gacanta ka saaraya wallahi labadaba waaye umalay maaye shaqo fiican oo lahaay inay jirto shaqo fiican haddii lahaayna walwal ma jiri lahayn marka walwalka wuxuu keenaa in oo at the end of the day say shaqo xumo u socoto dalkiiba gacanta uu ka baxo dalku hadda xasan sheekh iyo madaxweyne u yahay dalku ma xamara waxaan rabaa inaan saaxiibo badan joogay aan siiyo waxaan rabaa in maadaama Cali Samatar uu yiri meesha waa ku dheeraanay hadalka dad badan saas dheheen inaan hadda kadib 3 daqiiqo aan ka dhigno cabdirasaaq aan aad uga codsaday inuu nagu soo biiro intaana space ka xataa furin aan u diray fariin baa nala jooga baay Faadiman waa joogtaa marka xoogaa aan isku dul qaadan haddii lacala abaartan joogto laakiin hadda aad hore ma keenin ha iga xanaaqin iga raali ahaaw in advance Faadiman rabaa inaan siiyo say ugu soo dhaweeyo cabdirasaaq laakiin muftaralaskan wuxuu dhahoyaa diyaarada ii taagan marka aaron Salman haye quickly go ahead وربما سنتين صاحب يال والسلام يا مارك تقولها قروح بدن إيو سعدين وهو كامل يسيو عبد الرزاق إيو فاطمة مالطا لما يهرت وحياة واقعي بتود أنا هو السوقي أريمها النوع عن إني مارك تي يقدر الله الصعود لكن هو آمن لا ودي أنت إلا الديارات السود تذكر آمن ما هين runtii fiican moogtahay ilaa ay diyaaraddu soo cagan dhigatay oo ay garoonka ka soo degtay aadan Cabdulla Cusmaan anigu ma aaminin waxyaabaha qaybtood in laga xishoodo way fiican tahay administration kan hadda jooga wuxuu dhaafay qadkii asaa oo maanta dhaafay shalay haddaan dowladnimo inuu noo hagayaan ku taageersanaa maanta waa dhigayaan أنا واحد إلى الشداء دل يدولة قضية دولة بينالية إلى الشداء خيركم إلى لنين ما عنكم إلى لنين كوبا هنا أكلت بنت إثيوبيا شلك سهر جدا أذكر غيرنا ما ترى واحد كو حد كذبتي ده استاج تي قد كي عسى وعدو ولا نبي صور خلطنا ما أنت وين بحسي administration كوا بحيو caalamkii maanta anagu saaxiibka nala ahaana oo shalay noo hiilin lahaana maanta waxaan umaleynaya sal jugle way dib ugu dhaxaynay aybaha ma yareenay haddii la soo tiriyo hadeer horta mar ayb waa ahayd waxa ayb ku ahayd adigoo shalay lagugu soo xadgudbay inaad maanta aad maaragtay haddana dhulkii lagu soo xadgudbay aad ciidii aad ku soo dhaweydasay كي مافيا أها هرت عيب هاي عيب طلبات وحي هاي أضو قركوت هال وكيت قرت لفرديو كيل قرت لغاية قادي انتا دو مرتيد انو انتو كشو كان سدو ولي بدي ميل هالكاسان أشيح كل عبتيد أيضو قرت اللو فرديو أيضو وعيب كلا وحا عيب ستحاد هاي قوني قوسة قوليو اسكت المامي nin intuu u yeertay qoliyo maafiya ah yiri waa kula fariisanaya MOU waa kula saxiixanaya oo raba dalkaaga ayaguna inay kala jiraan asaguna uu raba inuu ayagii heshiis la sii galo uu ka soo laaban inaad inta u yeeratid aad tahdid oo inta xabadka galisada u sacbato inta aad tirahdid wixii aad samaysay xagga dhigay soo dhawo kala qaday oo inuu badda ku dulqaday ayaduna anaga ceeb nagu ahayd
Soomaaliya inta sharci kama jiro oo aan ognahay ma aragtay dastuurkeena waa iska qabiyo laakiin intaasoo ceeb ah Ethiopia in madaxda kan federaalka ah iyo kan isteediyada in ay Ethiopia saa ugu ka dhuntaan oo saa ugu maslaxayaan oo ay saa aad aragteen Soomaali loo bahdilo oo administration walba u yimaado Ethiopia saa uga lalado niman yahow anagu arintaas ayada ah waxaan u maleynayaa waxay nagu tahay xoogaa xadgudub aad u ballaaran waxaan ficnaan lahayn marka kacdoon ah siyaasiyiinta Ethiopia ku lugta leh doorasho hadda soo socota waxay imaan doonaan rag kale oo maaragtay ayaguna nadiif ah oo ka soo qayb galaya annagu aan kaga aarsanno inaan support gareeno dadka Ethiopia ka madax bannaan waayo dadkan waa soo aragnaya marka waxaan jeclahay sidii Sacdiiba hore u sheegtay Cabdirasaaq Xasan inaan ku soo dhaweeyo maxaa Cabdirasaaqow annaga iyo shacabka inta badan ka qarsoon maxaa daaha gadaashiisa ka socda maxay tahay ujeedada ugu muhiimsan ee Abi uu xamar u joogo maxaase la og yahay oo ka soo baxay shirarkan isdaba jooga bal soo dhawow nala wadaag aragtidaada galab wanaagsan kulligiin waxaan idinku soo biiray mar dhow waxa meesha ka dhacay waxay ahayd diplomatic gamemanship wax la yiraahdo gamemanship macnaha xariiftan ama ciyaartan ama diplomatic game ama maxaan ku yiraahdaa karaa ciyaar diblomaasiyadeed oo la jugaysto tii ugu sarreysay baa meesha ka dhacday yani waxaad ka fakertaa isqabqabsi labada loo isqoonsaday ama ismaagay oo wax usbuuc ka yar isqabqabsigoodu uu security councilka garaacay oo African Union ka dhacay oo State Department ka qaylisay oo tan down street protest soo diray oo European Union statement ka soo saartay Arab League ay shir degdeg isugu yeertay regional organizations tira badan international organizations tira badan ay soo baxaysay wax xilligan la soo gaari karo super powerska isku dhaca ama isku socda inay isku dhacaan the kind of international response ka ay samayso kale macnaha Mareykan iyo Ruush is soo aaday oo kale ama Mareykan iyo Chinese is soo aaday oo kale nuuca international diplomacy-gu ay markiiba ugu gurmato oo kale nuuc la mid ah bay international preparedness iyo diplomatic high maxaan ku dhihi karaa waa aniga haddaa u bixiyay the height of diplomatic gamemanship baa meesha ka dhacay looma sinna waxaa keentay waxa weeye in badan the last 70 years lama arag dal adduunyada saddexaad dal uu aqoonsan yahay oo safiir u joogo qaybtiis heshiis la galay oo qaybta kale aan ka qaadanaya yiri labada dalkana ay labaduba adduunka saddexaad ka tirsan yihiin bal adduunka saddexaad inuu saa u dhaqmo maahane adduunka koowaad baan saa u dhaqmin waa macnaha waa arrintii Abiy Ahmed noola yimid arrintii the kind of a curveball-kii uu Abiy Ahmed nagu soo gamay xaggeena u soo diray waxay ahayd wax aan the first world laga filayn iska daa the third world horta mushkilad intaa leeg baa dhacday haddii intaasoo rebuke ah ay adduunku maaragtay uga hortageen wixii meesha ka dhacay iyo cambaarayn ah ay uga hortageen Abiy Ahmed was undeterred waare wuxuu oran jiray shidanaaba shidan ya adaaba sheegaya ma maqli jirta he was undeterred on the other hand madaxweyne Xasan Sheikh dalkiisa qaybo badan oo ka mid ah buu saamayn ku yeelan waayay madaxweyne Xasan Sheikh international community-ga qaybaheeda kala duwan waa u suurtooday si sahlan qaarkood xataa isagoon communication laba samayn inay u soo gurmadaan oo yiraahdaan waxa halkaa ka dhacay waa gardarro Ethiopia iyo Abiy iyo waxay ku dhaqmayaana every norms aynu naqaanay ka soo horjeeda hala joojiyo however madaxweyne Xasan Sheikh markuu inta soo noqday uu dalkiisii damcay inuu the same message u diro dalkiisa waxaa ka soo baxday yeah you're right waa ku naqaan I mean yaa siraysa who are you fooling we know you baa ka soo baxday
wuxuu ku guuleystay marka international community warkiisa inay rumayso waana runo abi waa gardaraa international community-guna in abi gardaran yahay waa ku saxsanayd laakiin somehow jabhaddii daakhiliga ahayd waa galvanaas garayn kari waaye marka labada ninba arrintii kumay sii socon karin runtii ninna adduunkii oo dhan oo sida avalanche-kii u soo jabaya baa korka uga soo daadanayay nin kalena dalkiisii baa sida daadkii u qaadayay ma garanaysaa somebody from above and somebody from below labaduba siima hayn karin mowqifkii ahaa aan colaadda isku sii wadno anu waxay la tahay haddii ilaahay uu ku roon yahay laba ninoon heshiin karin oo weligoodba ay caddeed inayn heshiin karin oo bad blood ka dhexeeyo bad chemistry ka dhaxayso isna caybsigoodii uu isku bedelay isna caybsigii labada dal haddii abi uusan xasan ka helin xasanna uu abi ka helin ultimately waxay isku bedeshay Ethiopia Soomaaliya kama hesho Soomaaliyana Ethiopia kama hesho gardarrada looma sinayn abi baa lahaa inuu duulaan ku soo qaaday Soomaaliya laakiin waa og yahay abi xasan imperatives-ku kula dagaalsan yahay inayan dan qaran ahayn ee ay dan personaala tahay waa uu og yahay sidee nimankaan markuu heshiiyeen nimankaan waxay ku heshiiyeen markii madaxweyne xasan uu jabhadda daakhiliga galvanaas garayn waayey iyo the turning point oo ahaa dagaalkii Jubbaland oo isagana cawaaqib aan fiicnayn oo internal frontiga ah ay ka soo gaartay gacan sida u cayaarana uu irrelevant iska dhigay ma garanaysaa in such a way nobody believes hataa hadduu yidhaahdo gacantii midigoo Soomaaliya la cunaya macnaha waa the height of irrelevance inside your country hataa madaxweynuhu hadduu ku dhawaaqo goroya cawl baa shalay lagu soo duulay laga rumayn mayo waxaa leeyahay waa wixiisa waa naqaanaa niyo halkaa markay marayso Turkey baa waxay aragtay opportunity-ga aragtay waxa weeye labada ninba inay diyaar u yihiin in face saving loo sameeyo midna international community-ga looga sameeyo midna internal front-ka dalkiisa looga sameeyo labaduna ay jeclaan lahaayeen confrontation-ki waagi inay iska dayn lahaayeen Turkeyna intii bay samaysay hadda labadaa nin jacayl ay isjecel yihiin iyo ninka kale wax u deliver garaynaya oo ay ku soo heshiiyeen ma jiro waxa xasan laba goor Addis Ababa la tagay iyo waxa hadda abi xamar la joogo midkoodna maaha Soomaaliya u dabacday Ethiopia wax siinaysa ama Ethiopia u dabacday Soomaaliya iska daynaysa labaduba waxay honor garaynayaan inay Turkey space iyo title regional ah oo in the Horn of Africa ka siinayaan waxay aaminsan yihiin in labada dalba ay hadda ku hoos noolaadaan wax la yiraahdo Pax Turkiyana ama ana u bixinaya waxa tiraahdaa Turkey magaca hadda waa laga bedelay Turkiye miyaan niraanha marka Turkiyana sidaan cusub hadda Turkiye sida loogu dhawaaqo Turkiye weeyaan Turkiye Soomaaliya Pax Turkiye way labaduba ku nool yihiin therefore xasan kabashta ka dhacaysa Turkey buu u sameeynaya kabashta ka dhacaysa abina Turkey buu u sameeynaya labaduna raalli bay ka yihiin in xajadkii la habaalay bay yihiin waayo siima wadi karin midkoodna xajadka colaad uusan fulin karin buu Ethiopia u jugaystay ninka la yiraahdo xasan abina colaad uusan fulin karin buu Soomaaliya u jugaystay labadiina inay balaaf gareynayeen waa og yihiin marka waa khasban yihiin in wajigooda la dhaqo now cidda wajigooda dhaqaysana waa Turkey laakiin labadu waxay heshiis ku yihiin maslaxadda Turkey heshiis kuma aha neither maslaxadda Soomaaliya wala tan Ethiopia labaduba maslaxad personal bay kala haayeen markay isdilayeen haddana maslaxad personal bay ka leeyihiin markaan ay isdiinayaan laakiin ninka maslaxadda dalkiisa wataa waa Turkey oo basiskeeda lagu heshiiyey waa Turkey now hadday saas tahay marka waxaan